wafdi balaaran oo uu hogaaminayo madaxweynaha Puntland ayaa si weyn waxa loogu soo dhaweeyay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. warkaasi waxa Boosaaso inooga soo diray wariyaheena Maxamed Axmed Cagamadhige. waxaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Deni. soo dhaweynta madaxweynaha ayaa waxaa ka qayb qaatay isimo salaadiin cuqaal waxgarad dhalinyaro haween saraakiisha ciidanka maamulka gobolka Bari ka degmada Boosaaso xildhibaano wasiiro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. markii uu soo gaaray magaalada Boosaaso ayaa madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Deni waxa uu mid uga can qaaday bulshada ku soo dhaweysay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. ugu horeyntii maayarka degmada Boosaaso Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaan ayaa ku soo dhaweeyay magaalada Boosaaso. madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Deni ayaa isaguna bulshada waxa uu ka hadlay goob fagaara madaxweyne dhammaan shacabka reer Boosaaso iyagoo hididiilada qaba iyagoo kalsooni ku qaba adiga iyo xukuumadaaduba inaad waxa weeye waxyaalaha badan oo qabyada naga aad ka mira dhalinaysaan ma waxaan leenahay dhammaantiinba soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaadba aad iyo aad baa u mahadsan tahay mudane madaxweyne soo dhawaada. waxay runtii kulankani soo baxan uu muujinayaa hordhicii nabadda magaalada Boosaaso. waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiis in dhammaan bulshada reer Puntland iyo maamulka Puntland qaybihiisa kala duwan dhammaantood ay iska kaashadaan sidii dalka looga ciribtiri lahaa dadka ku soo duulay oo nolosheenna halista ku ah oo diidan inaynu horumarno oo diidan inaynu noolaanno oo diidan inaynu kala dambayno oo dawladnimo yeelanno. waxaa runtii wax laga xumaado ah in dad caadaystay dadkeenna birmageyada ah inay maalin walba horteenna ku qashaan oo ugu dambeeyey suldaan Bashiir Muuse Koonte oo runtii ahaa suldaan qiimo weyn ugu fadhiyay bulshada reer Puntland meel kastoo joogtay oo ka qayb qaadan jiray nabadda. ciddii falkaas geysatay iyo falalkii kale ee ka horreeyey ee lagu dilay maareeyihii dekedda Bawl iyo inta la mid ah ee waddankan horumarkooda ka shaqaynayay dadkii isku dayay inay nolosha u dhaafiyaan ulajeedadooda waxay ahayd nolosha Puntland inay gooyaan. waxaan ballan qaadaynaa inaan si adag uga hortagayno dadka doonaya inay dadkeenna diiwaandaabiyaan nolosheenna wax u dhimaan. waxaan rajaynayaa Boosaaso inay ku soo noqoto iyo guud ahaan gobolka Bari iyo Puntland nabaddii lagu nooloon jiray ay caanka ku ahayd ee muddadii burburka kaliftay inay hooy u noqdaan ummad fara badan oo Soomaaliyeed oo markaas duruufo adag haystay. waxaan rajaynayaa Puntland iyo Boosaaso inay weli hooy u noqoto inta dhulkoodii ku noolaan weyday inta dulman inta rabta inay nolol abuurato. waxaan gacan furan ku soo dhawaynaynaa cid kasta ama dalka gudihiisa ka timaado ama dibadihiisa ka timaado oo Puntland iyo gobolka Bari nolol u soo horseedaysa. way ka shaqaysan karaan way degi karaan wayna noolaan karaan waana soo dhawaynaynaa. waxaan ka digaynaa cid kasta oo ka timaaday meel kale dalka gudihiisa iyo dibadiisa ee u soo aaday Puntland in ay nolosha iyo nabadgelyada iyo kala dambaynta la haysto waxyeelayso. waxaan ugu baaqaynaa dadka noocaas ah inay meelahay ka yimaadeen ku noqdaan. dadkan weynan aqoon dulqaadkooda wuu dhammaaday waxay diyaar u yihiin in ay gacan bira ku qabtaan cid kasta oo noloshooda diidan. waxaan sidoo kaleeto u sheegayaa dhallinyarada la marin habaabiyey ee deegaanadan ka soo jeeda ee buuraha ku dhuumaalaysanaysa wakhtigiyuu inaga dhumin noloshayna inaga baabi'in bulshadiinnu ku soo noqda waalidkiinna iyo ehelkiinna jeclaa ku soo noqda. haddaad diiddaan ciqaab baa mutaysanaysaan. dulqaadkii uu ka dhammaaday dadkan mana eegan doonaan mar dambe. waxaan u rajaynayaa bulshada reer Puntland iyo Boosaaso nabad waarta amni iyo kala dambayn. waxaan ballan qaadaynaa inaan si dhow ula shaqayno bulshada reer Puntland iyo tan Boosaaso iyo tan gobolka Bariba. waxaan diyaar u nahay inaan noloshiinna ka shaqayno horumarkiinna ka shaqayno wanaaggiinna ka shaqayno inta dibindaabyada inagu waddan aan iga qabanno. aad iyo aad baan inagu mahadnaqayaa. ومحمد أحمد عكاجي TV عالمي Somali Cable Boosaaso.